dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen khamiis ay soo galayso gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gumeelgaarka Xalima Yarey oo 27 bishan aynu ku jirno ee meesha cidoonta doorashooyinka goorta ay bilaabanayaan ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xalima Ismaaciil Ibrahim Xalima Yarey oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo xilliga doorashooyinka guud ee Soomaaliya la galayo waana dhamaadka bisha May sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka ee dastuurka gumeelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya waraysi gaar ah oo ay siisay warbaahinta maxalliga ah ayaa waxaa laga weydiiyay arrinka gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xalima Ismaaciil waxayna tiri si fiican ayuu noogu diyaarsan yahay waxaana sugaynaa sharciga doorashada ku dhigan waxa uu leeyahay 6 bilood ka hor maalinta doorashada loogu talagalay guddiga waa inuu baarlamaanka hortaga waxayna ku aadan tahay 27 bisha May aynu ku jirno waa waxyaabaha aan hadda ka shaqeynayno sida aan baarlamaanka u hortagi lahaynay si fiican ayaan uga shaqeynay ayay tiri Xalima Yarey haddaba qodobka 13aad ee farxadiisa saddexaad ee sharciga doorashooyinka waxa uu dhigayaa qodobka 13aad cayimaada taariikhda doorashooyinka la qabanayo doorashooyinka dalka waxa la qabanayaa 4 sanaba mar si waafaqsan qodobka 6aad ee dastuurka bil ka hor dhamaadka muddo xileedka baarlamaanka maalinta doorashooyinka la qabanayo waxaa cayimaya guddiga kumeelgaarka ah kadib markii uu xaqiijiyo jiritaanka dhammaan xaaladaha suurtagelinaya doorashooyinka waxayna wargelinayaan taariikhda doorashada golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xukuumadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed xisbiyada siyaasadda ee diiwaan gashan guddiga kumeelgaarka qaran waa in ay mudeeyaan taariikhda doorashada ugu yaraan 180 maalmood ka hor waqtiga ay codbixinta qabanayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo hadda fasax ku maqan ayaa la ogeyn in xilligaani ka hor fariisan karaan ama inay la kulmi doonaan gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka si ay go'aanka ugu sheegto iyada oo ay sidaa tahay haddana waxa baarlamaanka federaalka ah uu guddi gaar ah u saaray saameynta habraacyada doorashooyinka waxa kale oo isla golayaasha sharci dejinta hor yaala sharciga xisbiyada oo dib u eegis ku jira walina dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada kama heshiin nooca doorasho ay dhacaysa maadaama khilaaf xoogan oo ka dhaxeeyo siyaasiyiinta iyo falaqaynta la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen inay adag tahay doorasho qof iyo cod ah sanadkan dalka ka dhacdo ayaga oo soo jeediyay in lagu laabto nidaamkii 2016 ama wax yar laga bedelay International Crisis Group ayaa soo jeediyay arrintaani oo kale oo ah inay doorashooyinka golaha shacabka ka qayb galaan 14,000 oo ergo kuwaas oo dooranaya 275 kuraasta golaha shacabka baarlamaanka xisbiyada mucaaradka ayaa walaac ka muujiyay in nabad iyo nolol aanay daacad ka ahayn doorasho qof iyo cod ah inay dhacdo 2020 iyadoo la diiwaan galiyay 82 xisbi oo aanay ku jirin midka xukuumadda si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa la isku khilaafsan yahay isla markaasina sida sharciga uu qabo 27 bishani ayaa la doonayaa in lagu dhawaaqo xilliga doorashada la qabanayo Xalima Yarey iyo Farmajo iyo Kheyre oo dhinaca xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo dhinaca ayaa isku haya doorashooyinka dalka uu yeelanayo kale Axmed Madoobe oo baaq muhiim ah u diray dowladda federaalka Soomaaliya kana qayb galay afur xalay loo sameeyay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xalay ka qayb galay munaasabad afur ah oo ay sameeyeen xubnaha isbedel doonka Jubbaland ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wada hadalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkaasi Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka soo baxo madaxtooyada oo xaliyo dhammaan cabashooyinka ay qabaan shacabka iyo xubnaha mucaaradka ku ah maamulkiisa uu hogaamiyo madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ay dhageysato sidoo kalena tixgeliso talooyinka wanaagsan ee lagu horumarinayo Jubbaland waxa uuna uga digay dowladda inay dib dadka ugu celiso caqabadihii laga soo gudbay isla markaasina iminka ay ku naaloonayaan nabad dowladda dhexe haddii ay ku marmarsiyoonaysa khilaaf ayaa jira iyo looma dhamo siyaasadda Jubbaland ha qiimeyso heshiisyada laga gaaray kala aragti duwanaanta sida heshiiskii ugu dambeeyay ee dhex maray maamulka iyo xubnihii isbedel doonka ahaa ayuu yiri Axmed Madoobe oo ah madaxweynahaasi maadaama aysan dowladda federaalka Soomaaliya aqoonsaneyn ayna ka carootay Axmed Madoobe ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya Farmajo iyo Kheyre in ay taageeraan shacabka ay hoggaanka u yihiin ee heshiiska qaatay ayna taageeraan hanaanka dowladeed ee ka jirta maamulka Jubbaland isla markaasina gacanta ay iswada haystaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo horjeeda dib u doorashadii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe waxaana dowladda marar badan ku celisay in doorashadii ka dhacday Kismaayo ay ahayd mid sharci darro ah
isla markaasina aan loo dhamayn dowladda federaalka Soomaaliya ay qorshaheeda wax ka abaabulin dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo baaq ka soo saaray xaaladda beledweyne xilli halkaasi barakac xoogan oo jiro gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cali Jayte Cismaan ayaa sheegay in maamulkooda uu dadaal fara badan ku bixiyay sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha webiga Shabeelle hase yeeshee ay timid awood ka tan badan waxa uu sheegay in hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan looga baahan yahay inay ka qayb qaataan gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo sidii looga hortagi lahaa cudurka caabuqa 19 oo dhibaato badan ku haya gudaha Soomaaliya iyo dadkii oo soo barakacay oo cabsidaas laga qabo waxa uu sheegay in ay ka maamul ahaan ay wali diyaar u yihiin inay hay'adaha caawiyaan balse ay muhiim tahay in la caawiyo dadka ka barakacay fatahaadaha beledweyne isla markaasina isdul dhooban magaalada dusheeda hadalka gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalin ka hor uu hay'adaha samafalka ku eedeeyay inay qayb ka yihiin fatahaadaha isla markaana wax gargaar ah aysan gaarsiin karin dadka ku barakacay deegaanada ceel jaalle isla markaasina oo duleedka magaalada beledweyne ayaa markasta martigelisa todobadii bilba biyo-baxo aad u xoogan oo halkaasi hanti iyo nafba lagu waayay maadaama biyo-baxooyinkii la soo dhaafay aad u xooganayeen isla markaasina ilaa hadda la laayahay meydad badan oo webiga hore u qaadeen isla markaasina qaarkood la helay sidoo kale duqda magaalada beledweyne ayaa halkaasi ka badbaaday iyo sidoo kale madax kale oo doon kula rogmatay xaaladda beledweyne ayaa ah mid aad u cakaran isla markaasina u baahan in loo soo duceeyo loona gurmado isla beledweyne ayaan ku jirnaa barakac aan caadi ahayn oo lagu talagalin ayaa ka bilowday magaalada beledweyne shalay ilaa maanta ilaa xalay waxa aad u socday barakac aad u xoogan oo gudihii ayay biyihii soo wada galeen maamulka gobolka Hiiraan ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay ku adkeysanayeen shacabka ku dhaqan beledweyne in ay ka barakacin magaalada iyadoo oo maamulka sheegay la xakameeyay fatahaada webiga naxdin xumo webiga Shabeelle ayaa saacadihii la soo dhaafay ku fatahay inta badan xaafadaha magaalada beledweyne markii uu soo jabsaday biyaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana dhammaan xirmay jidadka isku xira xaafadaha kala duwan ee magaalada taas oo dhibaato adag ku noqotay dadkii ku noolaa magaalada waxa la arkay qof walba iyo naftiisa qofkii garabka ku soo bixi karo iyo qofkii gawaari haystay qofkii gaardameer haysto dhammaan dadkii deganaa magaalada beledweyne ee biyaha soo galeen waa ay ka soo carareen waxa maanta lagu arkay magaalada dadka oo ka baxaya guryahooda waxayna badankooda isugu tageen deegaanka ceel jaalle ee ku yaala dhanka bariga ee magaalada beledweyne halkaasi oo la soo sheegayo inay ku haysato xaalad adag oo dhinaca nolosha ah maadaama aysan haysan hoy ay ka gaabsadaan qorraxda roobka iyo dhaxanta iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo halkaasi aan ka jirin sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka barakacay gudaha magaalada beledweyne dadka deegaanka ayaa waxaa soo wajahay xaalad adag iyaga oo codsaday gurmad degdeg ah oo lala soo gaaro warkii ugu dambeeyay ee aan ka helayna beledweyne waxay sheegayaan in qoysas badan ay weli ku xayiran yihiin xaafadaha magaalada biyuhuna ay jiho kasta ka mareen waxayna dalbanayaan gurmad laga soo gaaro oo degdeg ah maadaama ay u baahan yihiin samata bixin oo biyihii dhinac kasta ay ka hareereeyeen allaha u fududayna ayaa leenahay reer beledweyne oo iminka xaalad adag ku jiro xilli ramadaan ah iyo caabuqa 19 oo dhibaato xoogan ku haya gudaha dalka Soomaaliya dhinaca kale diyaarad uu soo diray amiirka Dubai oo maanta Muqdisho ku soo wajahan iyo wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum oo ah madaxweyne ku xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta iyo amiirka Dubai ayaa amar ku bixiyay in diyaarad gargaar sida loo soo diro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya diyaaradda oo la filayo inay maanta soo gaarto Muqdisho ayaa sida agab ka kooban mashiinada dadka neefta siiya oo ay u baahan yihiin dadka ku dhaco xanuunka caabuqa 19 iyo agab kale oo muhiim ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta gargaarkan oo dhan 35 tan ayaa sida la sheegay qayb ka ah dadaalada ururka caafimaadka ee WHO oo kaga jawaabayo cudurka caabuqa 19 iyo dadaalada hay'adaha qaxootiga adduunka UNHCR ay ku caawinayso dadka ay daadadka ku saameeyeen gudaha dalka Soomaaliya Nadia Jabour oo ah madaxa UNICEF ee Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in gargaarkan uu caawin doono kumanaan qof oo daadadka ay ku barakaciyeen gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina dhibaato xoogan ay haysato tan iyo bilowgii sanadkii in ka badan 200 oo kun oo qof oo Soomaali ah ayaa ka barakacay gudaha dalka waxaana ka cabsi qabaan in xaaladan oo lagu daray cudurka caabuqa 19 ay yeelan doonto cawaaqib burbur leh ayay tiri
waxay ugu mahad celisay Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum jawaabta uu ka bixiyay xaaladda iyo caawimaadda degdega ah ee dadka ay saameeyeen musiibooyinka ayay tiri si kastaba ha ahaatee Imaaraadka iyo UNICEF oo iskaashanaya ayaa iminka gargaarkaasi u soo diraya gudaha dalka Soomaaliya saacadaha soo socdo ayay soo degayaan